السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هالكني وكبروا ganacsi. واتاي ما توحنيني وذا إن تطبق قضب وأدوق مهمة ganacsiga. إتادن أساسين كهر إن شروطها أددسا وأد استراتيجية سميستا وحي آديات كعاوريسا إنه ganacsiga سفدود كوجو سميسمو سفدودنا أد واستراتيجي جريسو أما بزنس بلان جريسو. واضح تطبق قضب أني نلو ذاقي وتطبق قضب وبزنس كستا أساسي إن أساستا الآن تودنا آدم بسكرين بزنس كل ذاقو وحيتاي وإن هذا ganacsiga سمين قضب كوكواد أي كوكعيسا وحنا قنايا وإن ريسيرش سميسا ريسيرش كهدوم محيم محل لو قبطة ريسيرش كوا حويا وإن ganacsiga سمينيسو حكم بحدا عاد كهشا bulshada dhexdeeda oo aad soo aragtaa meel kasta in uu ganacsigani jiro inuusan jirin in imika lagu tashanayo in dawladdu diidan tahay in dadku aysan xiisayn doonin in dadku ay aad ugu baahan inay si meel dhaxaad loo baahan yahay in dadku ay meherada qaarkood ay jiraan in kuwa kala jirin yani uusan ku badnayn magaalada waxyaabo badan marka waxyaabaha soo dhaba la yiraahdaa research fahanti يعني وحكاس ساعدية إن ganacsigaagi aad full information aad ka heshaa waa takuwataasi qodob kalabaad ee aan ganacsiga laga maarmin in la sameeyo waxay tahay markaad research ka soo gudubtaa sida aan kala horeysiinayo ayaad u kala horeysiin ama u kala horeeyaan markaad research ka soo gudubtaa ayaaba waxaad sameynaysaa business plan wax la yiraahdo waxaad qorsheynaysaa businesskaagi balaanki iyo qorshihii aad ku wadi lahayd maadaama aad soo heshay xog buuxda oo aad research soo sameysay business plan-kana waxyaabaha lagu qabto ee laga maarmaanka waxa kamid ah inaad dejiso qorshihii ganacsigan aad ku qaban lahayd sidii aad u shaqeyn lahayd halkaad ka shaqeyn lahayd iyo sidaad wax u qaban lahayd iyo sidaad wax u sameysanaysay iyo sidaad wax u horgalaysay iyo waqtigii aad wax qaban lahayd iyo goortii aad wax hirgelin kartay iyo si walba oo ay dib ku haysatay sidaad wax xalin kartay iyo si walba oo aad wax uga faa'iido lahayd taasoo dhan baa la yiraahdaa business plan ganacsi aan business plan lahayna in ma guuleysto inta badan in qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa inaad businesskii markaad plan gareyso ee aad soo research gareyso marka saddexaad waxaad qabanaysaa inaad sameyso business place yani inaad place-kii aad ganacsigan ka furi lahayd ama ka hirgelin lahayd aad tagtaa ama aad heshaa ama aad raadisaa sabab taqaanaanba inaad ganacsiga location u heshaa location kaasna aad eegtay inuu problem leeyahay dabcan hadii ganacsigaaga meeshii aad ka fariisay u dhow ay meherad adiga kula mid ku taalo kale waa problem sidoo kale meel aan dadku iman karinba waa problem meel suuqa ka baxsan meel aan waxan ku soo baxayn yani hoota place diyaari place ku soo baxaya la xiriir raadi kadibna ganacsigaaga ma ku haboon yahay dhimso ma haboona taasna waxa la yiraahdaa inaad business plan business aan raadi place samayso aad place qorsheyso hadaba qodobka afaraad ee aad u baahanaysaa waxa uu noqonayaa inaad businesskaagi wax aad ku samayso analyze and decide yani analyze and decide waxaan ula jeedaa inaad businesskaagi qorsheyso aad qaabayso inaad businesskii qaabayso qorsheysaa ayaad qodobka afraad ku qabanaysaa sideeba hadaba loo qorsheyn karaa oo loo qaabeyn karaa waxyaabo muhiim ah hadaan ka taabto in yar waxay noqon kartaa qorsho maadaama xogtii buuxda soo heshay oo aad qorshihii balaankii businesskii soo dejisatay oo aad place-kii heshay kaliya waxa ka dhiman hadaba waxay tahay waa analyze and decide qorshe iyo qaabeyn hadaba meeshan aad heshay place-kan sideed u qaabeynaysaa sideed qolkii aad kaleysatay ama dabaqii aad kaleysatay ama xaruntii aad kaleysatay sideed u kala qaybinay sideed service-kii aad qabanaysay shiyadii u watay sideed u kala dhigdhigi sideed u design gareyn sideed u qorsheyn sidee ku qurux badan sidee wax u soo jiidan kartaa sidee halkii macaamiishu joogsanayaan halkii wax ka gadanayaan waxa soo dhan design analysis baa la yiraahdaa waa inaad analyze garaysaa
oo aad qorsheysaa businesska hadaadan saa wax u qorsheynin markaad blaceka hesho oo aadan meel kasta waxay kusoo baxayaan iyo nidaam kasta aadan sameynin yaa iyo meel blace space kugu fulan aadan u dhisan gareynin xurunta yareed heshay ama aad kareysatay ama aad ka dhigatay ganacsiba say noqotaba haddii aadan analysis design sameynin way adkaanaysaa oo aad alaabtii ku gurto ama niman shaqaala aad tiraahdo waa nin alaabta xagga kala dhiga ee way adkaanaysaa qodobka shanaad ee aad u baahan tahay markaad ganacsi sameynayso ama aad sameyso markaad afartaa ka soo gudato tashanaad sameynaysaa waxay noqonaysaa inaad sameysato wax loo yaqaano e-market يعني إن تسوقين سميسا ما دام حرنتي مركا عاد أفراد كسوق ذو كبعدي وحين نقولنسا ganacsi فرب نقولني أو شقينية صوتها لوكيش كيوان صويا نما سوق عليه وان أناليز كرينا وان دستين كرينا دي إسبيسيان سميسا إنه وان كأني دي ganacsiga soo hayba gabigiisa marka waxaad hadii tusaay waa qaabkii aad ganacsi aad uga faa'iideysan lahayd oo aad bulshada u bandhigin lahayd ganacsigaaga uga faa'iideyn lahayd hadaba taas waxay suurtagelinaysaa in bulshada aad sugin intay ku imanayaan ee aad u baahan tahay qodobka shanaad oo ah inaad sameysato e-marketing wax suuqgeyn leedahay suuqgeyntu qaab badan bay leedahay iyo nidaam badan bay leedahay wax lagu suuqgeeyo way kala duwan yihiin ma fahanti marka haddii aan mid kaaga taabto ugu fiican waxay tahay inaad ganacsiga xiisiis u sameyso sababtoo ah in yar oo $10 ama $20 ama $30 ganacsiga xiisiis kaaga baxay in waxay ka daran tahay in qeyrka ama meheradi agtaada ganacsi sameysto oo adigu aad 20 wixii aad la xilaato kuwi kala ku dhaafa inta badan xiisiintu waa la isku dhaafaa in u dhiibo in barta aad ganacsiga ka farayso dad caan ka ah oo la garanayo oo muuqaalkoodu dadka cajabiyo ama ay xiisayaan waxay ku suurtagelinaysaa in ganacsigaaga faafo dad badan oo aad islahayn u gaarayaan u gaaro waxyaabaha aykaas ayaa loo yaqaanaa e-marketing ama suuqgeyn baa la yiraahdaa in haddaad suuqgeyn sameyso ganacsigaagu aad buu socon karaa in qodobka lixaad ee aad u baahan tahay markaad joogto qaabka ganacsiga aad furayso aad u horumarin lahayd waxa uu noqonayaa inaad sameysato future plan mustaqbal kaaga ganacsigaaga mustaqbalkiisa inaad ganacsiga mustaqbal u sameysay aad bil laga maarmaan tahay sababtoo ah hadii aad ganacsiga intii aad ku furtay qorshe aad ku furtay business plan aad u sameysatay kaliya aad ku ekaysaa oo future plan uu soo gali waayo waxa imanaysa ganacsigaasi horumar ma yeelanayo waxa uu ahaanaya mid intii loo dejiyo ku socda hadii uu dhib ka hor yimaado xalin kari waayo caqabad laakiin hadii future plan aad leedahay waxay ku suurtagelinaysaa inaad si fudud ku hormarto ganacsi kale ka sii sameyso waxyaabaha aynkaas ka dhabaalayaa future plan markaad ganacsigan balaankiisa aad meel u dhigtay haddana mustaqbalkiisii saad u bedeli lahayd laga yaabo isaga xitaa inaad company u sii bedesho waxaad maqashay inta badan dadka ugu taajirsan dunida ganacsigadii ka soo bilaabeen ilaa ay haatan kuma shaqaystaan oo kuma taajirin laakiin maxay ku taajireen midba mid buu dhiibeen taas baa waxa la yiraahdaa jaranjarta la fuulayo ee loo yaqaan future plan qodobka 7aad ayaan ku soo gabagabin doono muuqaalkayga wuxuu noqonayaa inaad ganacsigaaga aad ku sameyso waxa loo yaqaano calculation ama accounting ganacsi kasta adduunka accounting wuu leeyahay accountigaasina waa tuu ku guuleysto ama ku guuldareysto dabcan haddii xisaabta ganacsiga qaldoonto waxaa suurtagelaysa in company-ga oo dhan hadduu dhaqaalihiisu xitaa $100,000 lahay khasaarihiisa kasoo kami waayo maxaa ku sababaya waa qodobka 7aad oo ah calculationka haddaba qof xirfad u leh kuuliyada la yiraahdo ama takhasuska la yiraahdo accountinga la kaasho haddaad adigu accounting tahayna kaba si fiican sababtoo ah ganacsigaaga xisaabtiisa inaad kala garatay way fiicnaanaysaa lacagtaad ku bilowday ilaa lacagtu maanta wado inaad kala sooci kartaa kala saari kartaa inta khasaare inta baxda inta faa'iido inaad kala saaratay waa ugu fiican waa tahay muuqaalkayga 7 qodob ayaan ku soo gabagabeynaya waxaan filayaa wixii fikirka aan qabo inaad ka faa'iideysan karteen wixii talooyinkiina inaan waxaan jecelahay comedy-ga wixii su'aal aad qabtaan ama aan jeceshiin inaad niiga soo jawaabo muuqaalada ku xiga insha Allah inaad iigu reebi doontaan waxaan niiga tagayaa waa halkan oo ah ka baro ganacsiga waxaan sidoo kale niiga codsanayaa kanaalka dadku cusubtiin inaad subscribe saartaan si aad ugu soo bartaan asxaabteedana uga mid noqotaan waxaan leeyahay sidoo kale ha iloobin walaaladaada inaad la wadaagto
kanaalka faa'iidada leh dad badan oo ganacsataana ay ka faa'iido doonaan waxaan igaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh